kulan wacan daawadayaal halkan waa janalka dalka TV Media qodobada wararka daawad doontaana waxaa kamid ah Xasan Sheekh oo shaaciye qorshe uu doonayo in awood qaybsiga 4.5 looga gudbo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka shifay heshiis ay galeen musharaxiinta mucaaradka ee la tartamay madaxweyne Farmaajo Aadan Madoobe oo loo gudbiyay dalab la xiriira lacagihii musharaxiinta madaxweynaha iyo qaybta dambe warkiina oo aad ku daawad doontaan beelo orajo weyn ka muujiyay dhinaca cafinta Soomaaliya haddaba maxaa soo kordhay qodobadaad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door corona warka janalka dalka TV Media fadlan daawade haddaan nagu cusubtaan nagu soo biro kamid noqo saaxiibada sida joogtada u hela wararkaan ku baahino janalkan aragtidiina halka hoose noogu reeba muuqaalkana sii sheer gareeya laagtiinana waa inuu muhiim daawadayaal haatanna ku soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo faahfaahsan madaxweyne Xasan Sheekh ayaa shaaciyay qorshe uu doonayo in awood qaybsiga 4.5 looga gudbo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo bixiyay wareysigii ugu horeeyay ayaa shaaciyay in dowladdiisu u qorsheysan tahay in laga gudbo nidaamka ee hadda beelaha Soomaaliyeed wax ku qaybsadaan ee 4.5 madaxweyne Xasan oo wareysigan siinaya VOA-da waxa uu ku sheegay in sanadihii uu ahaa madaxweynaha sideedaad ee Soomaaliya la sameeyay nidaam looga gudbi karo awood qaybsiga beelaha Soomaalida ee 4.5 ee doorashada dadban balse aan la dhaqan gelin 2017 markii aan xukunka ka degay waxyaabii aan madaxweyne Farmaajo ku wargeliyay waxa kamid ahaa qorshaha looga gudbayo nidaamka 4.5 iyo doorashada dadban walina waa yaala hadda dib u eegis ayaan ku sameyn doonaa waana dhaqan galaya ayuu yiri Xasan Sheekh madaxweynaha ayaa sheegay in beelaha Soomaaliyeed qaar aysan jecleen sida hadda awoodaha lagu qaybsado ee 4.5 isagoo ballan qaaday in qorshaha nidaamkaas looga gudbayo ay la imaan doonaan markii uu dhameysto muddo xileedkiisa 2026 nidaamkaas inuu dalka ku sii noqdo ma jecli haddii la yiraahdo markii waqtigeenu dhamaado ee 2026 waxa la imaan doonaa nidaam doorasho oo dadku isku raacsan yahay oo doorashada dadban ka duwan ayaa la imaan doonaa ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh qaar kamid ah beelaha Soomaaliyeed ayaana aad uga cabta nidaamka ay burburkii kadib Soomaalidu ku qaybsato awoodaha dowladda ee 4.5 taas waxa barbar socday doorashooyin aad loogu nacay musuqmaasuq iyo awood sheegashada ka dhex jirta balse hadda madaxweyne Xasan Sheekh oo mar labaad fursad u helay inuu ku soo laabto xukunka ayaa ballan qaaday inuu dalka ka gudbi doono 4.5 iyo doorasho dadban dhinaca kalena Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa uu ka shifay heshiis ay galeen musharaxiinta mucaaradka ee la tartamay madaxweyne Farmaajo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo kamid ah musharaxiintii uu tartamayay xilka madaxweynaha ee Soomaaliya ee 2022 ayaa ka shifay heshiis ay hore u gaareen xubnihii musharaxiinta midowga ee fadhigoodu ahaa Hotel Jazeera isagoo la hadlayay taageerayaashiisa kadib doorashadii uu ku soo baxay Xasan Sheekh ayaa ka shifay in ololaha doorashada ay galeen uu ahaa mid aan ku saleysnayn qabiil balse uu jiray heshiis ay galeen musharaxiinta midowga oo ahaa in musharaxa ugu codadka bata la wada taageero heshiiskeenu wuxuu ahaa qofkii naga mid ah ee tartanka ku hormara in la taageero taasa keentay in Xasan Sheekh Maxamuud la taageero sidaas ayuuna heshiisku ahaa ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur sidoo kale Cabdiraxmaan waxa uu cadeeyay in heshiiskaasi uu hore u keenay in Xasan Sheekh ay codadka ugu shubaan ayna taageereen isaga Sheekh Shariif Saciid Dani iyo Xasan Cali Qare wuxuu dalbaday inuu madaxweynaha cusub fuliyo wixii ay u taagnaayeen mucaarad ahaan qaybna ka wada noqdaan dowladda inta guusha ku lahayd oo la dhiso dowlad midnimo qaran ayna arintu noqoto koox guuleysatay geesta kalena Aadan Madoobe waxa loo gudbiyay dalab la xiriira lacagihii musharaxiinta madaxweynaha gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo xafiiskiisa ku qaabilay guddiga gurmadka abaaraha ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii wax looga qaban lahaa abaaraha ka jira dalka kulankan ayaa waxa sidoo kale diiradda lagu saaray sidii degdeg gurmad loogu gaarsiin lahaa qoysaska Soomaaliyeed ee saameeyeen abaaraha haatan ka jira dalka xubnaha guddiga ayaana intaasi kadib gudoomiyaha u gudbiyeen codsi la xiriira lacagihii faraha badnaa ee laga qaaday musharaxiintii u tartamayeen xilka madaxweynaha si qayb kamid ah loogu deeqo gurmadka waxna loogu qabto dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan musharaxiinta tartamaya oo kor u dhaafaya 30 qof ayaa mid kasta waxa
waxa uu bixiyey lacag dhan 40,000 oo doolarka Mareykanka, taas oo ahayd mid lagu diiwaangeliyay tartamayaasha oo uu ugu dambeyn kasoo dhexbaxay madaxweyne xasan sheekh. Dhankiisa Sheekh Aadan Madoobe oo ka hadlay kulankan ayaa guddiga u sheegay in sida ugu wanaagsan uu goluhu ula shaqeyn doono una tixgelin doono dalabkooda. Guddiga gurmadka abaaraha ayaa haatan wadaan dadaalo xoogan, waxayna hore ula kulmeen madaxweynaha cusub oo ay kala hadleen xaaladda abaaraha ee dalka ka jirta. Kulamadan ayaan imaanaya xilli ay haatan dalka ka jirto abaar aad u daran, iyadoo lasoo warinayo in gobolada qaar ay dadka u dhinteen biyo la-aan, halka qaarna ay ka barakaceen deegaanadii ay ku sugnaayeen. Soomaaliya ayaa waxaa kusoo noqotay abaar ba'san, taas oo loo sababeeyay roobabkii la filayay oo aan diin iyo dhibaatooyin kale oo isbiirsaday. waa hagaagi daawadayaal, iminkana waxaanu eegaynaa wasiir Beele waxa uu rajo weyn ka muujiyay deyn cafinta Soomaaliya. Haddaba maxay tahay waxa soo kordhay? wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beele oo qoraal kooban soo saaray ayaa ka warbixiyay kulan gaar ah oo aalada Zoom-ka kula yeeshay madaxa hay'adda lacagta adduunka ee IMF. wasiirka ayaa sheegay in kulankan uu muhiim u ahaa geedi socodka deyn cafinta Soomaaliya, waa sidoo hadalku u dhigay. Kulankan ayaa waxaa ka horeeyay mid kale oo goobjoog uu ka ahaa madaxweynaha cusub ee Xasan Sheekh, kaas oo isna diiradda lagu saaray arrimaha deyn cafinta Soomaaliya. goordhow waxa inoo soo idlaaday shir kale oo muhiim u ah geedi socodka deyn cafinta Soomaaliya. waxaan si gaar ah ula shirnay hay'adda lacagta adduunka ee IMF, iyadoo mar kale uu nagala soo qayb galay madaxweynaha cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud, ayuu yiri wasiirku. sidoo kale wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyay in hay'adda lacagta adduunka IMF ay dhammaan ka cafiso dowladda Soomaaliya deemaha lagu leeyahay. rajada Soomaaliya gaarista deyn cafin dhammaystiran ayaa hadda mid aad u sareysa, ayuu qoraalkiisa ku sii raaciyay. dadaalada deyn cafinta oo muhiim u ah Soomaaliya si ay horumar dhaqaale u sameyso iyo maalgashi ayaa soo socday sanado badan, iyadoo haatan uu marayo meel wanaagsan. si kastaba Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii looga cafin lahaa deemaha lagu leeyahay, waxaana jira dalal dhowr ah oo horey deemaha uga cafiyay dowladda dhexe. guud ahaan daawadayaal wanageynta warkii oo aad kala socoteen janalka dalka TV Media, fadlan daawade haddaad nagu cusubtaan nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada sida joogtada u hela wararka iyo warbixinada 24 saac aan ku baahino janalka. aragtidiina halka hoose noogu reeba, muuqaalkana sii sheer gareeya, laagtiinana waa inoo dhiiragelin. waana ku mahadsantiin daawashada iyo la socodka warka janalka dalka TV Media.